bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahan jeclahay ee janalkeygan waani wacyigelin ku xiran soo dhawaada maanta insha Allah raxmaan waxaan rabaa inaan maaragta horta maanta maalinteena cunno karinta idin wadaagi jiray maanta insha Allah waa maalinteena wax kale kala faa'iideysan jirnay cunno karintana aan kana siin jirnay sida janalkeena caadada u ah maalin walba horta video aan soo geliyaa maalin cunno karin baan inta badan maaragtaas ka hadalna ama isla wadaagna maalinna maaragta waxyaabo kale oo aan isla adduunyadeena iyo aakhiradeena waxban ka faa'iidi karnaa maaragta insha Allah isla wadaagna marka maanta maxaan rabaa inaan idin wadaag maanta waxaan rabaa horta inaan ka hadlo mowduuc ah maaragta ku saabsan waxa loo yaqaan xaasidnimada ama xiqdiga ilaahay ma horta nafteena magan uga ahay inay maaragta wax xasido laakiin mowduuciga marka insha Allah raxmaan waxaan rabaa inaan kaga hadlo xitaa horta ma suurtagal baa qof inuu wax xasido haday suurtagal tahayna maxay heeto la sidee macnaheedu la isdhigi karaa qofkani uu markaad maaragta la kulantid qof xaasida sidee baad ku garan kartaa camal ama siyaabo casriga waayadan dambe xaasidnimadii maaragta ay isku bedeshay aan rabaa insha Allah raxmaan idan inaan ka hadlo waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo ilaahay ma yadhin insha Allah sida ugu fudud oo aan isleeyahay xaasidnimada waa uga dawoobi kartaa ama naftaada waad uga daaweyn kartaa ama in qof walaalka xaasidid waad ka goortay kartaa insha Allah marka mowduuciga hadaan u guda galo horta ma suurtagal baa qof inuu wax xasdo horta taas waxaan isleeyahay anigu aragtidayda waa suurtagal waana wax dhici kara maxaa yeelay ilaahay baa dhahay maahan in nafsa la amaaratan bisu naf walba maaragta waa mid maaragta xumo u saaxiiba marka oo maaragta xumo way ka suurtagashaa marka maadaama ay saas tahay waxaan isleeyahay xaasidnimadan ay tahay xumo mid ugu xun ani aragtidayda waxaan isleeyahay maxay heetore qof wuxuu xasdi karaa oo taas waa suurtagal horta cid walba aqal lehna way dareemi kartaa ama way fahmi kartaa in maaragta xaasidnimadu ay tahay qof bini aadan wax ka suurtagali karo marka insha Allah raxmaan waxaan rabaa marka hadaba waxyaabaha casriga ee waayadan dambe maaragta xaasidnimada isku bedeshay aan rabaa inaan maaragta wax ka taabto ama wax ka dhaho insha Allah horta xaasidnimada waayadan casriga wax isku bedeshay waxa dhacaysa tusaale kale inta qof wax bilaabay ama ganacsi buu bilaabay ama waxbarasho bilaabay ama wax kale uu bilaabay qofkaasi qof baa u imaanay wuxuu leeyahay kamada dadkoo dhan maahan inay maaragta wada xaasidin yihiin qalad ay fahmin laakiin waxaan ka wadaa sidee ku garan kartaa qofka xaasidka waxaad ku garan kartaa qofka xaasidka uu ku imaanaya asagoo aan waxba ku sababaynin oo sabab macquul ku hordhigan ay wuxuu ku leeyahay wareebilo waxa ma sameyn kartid waqtigaas isaga dayacina waxaad sameysaa raadi wax kale intood oo waqtiga ka faa'iideysan kartid qofka noocaas marka la kulanto adigu maxaa isleedahay war qofkan waa qof walaalkaayo waqtigaagu raba inuu ku ilaaliyo marba inuu waqtigaa ka dayaco laakiin cagsiga qofkaasi waa qof niyad kale maaragta wato wuxuu rabaa inaadan waxaan xaqiijinin wuxuu rabaa inuu niyada ka dilo wuxuu rabaa maaragta inaadan horumarkan gaarin marka horta ilaahay magan uga nahay ilaahay nagu keenay qof walaalkeena inaan xasidno marka horta xaasidnimadiisa ay horta bariyahan dambe casri u noqotay qof baa ku imaanaya bilaa sabab wuxuu ku leeyahay waxaan iska daama sameyn kartid hadda waa dhaabinus inaad sameyn kartid haddii aad isku daydid maxaa yeelay wado walba oo qof rabo inuu guul ku gaaro waxa hor yaal waa ognahay qodxa fara badan dad fara badan waxaa jira maaragta af iyo adinba kugu waxyeeleynaya dad fara badan waxaa jira niyada ka dilay marka si aad waxa soo dhan uga gudubtid waxa la rabaa in dhabar adeeg la timaado Soomahan oo noqotid qof adag marka qofkani asoon eegin bal horta qof noocee tahay qof dulqaad u leeyahay waxaan ama qof sidee aad tahay asoo maaragta aanan ogeyn ay wuxuu kula hor imaanaya waxaan iska dahabiyo ma gaari karto waqtigaas isaga dhuminay okay ama waxa ba dhacayso kale intood qofka inuu waxaan isaga hore u sameeyay okay wixii marka hore u sameeyay uu kashifmay ama wixii uu hirgelin waayay ama uu suurtagali waayay wuxuu ku leeyahay war tusaal wuxuu kaaga dhigayaa sabab maaragta oo macquul kula noqon karto wuxuu ku leeyahay waxaan inaan sameeyay iska dahabiyo adigana ha sameeynin yaadan wadada ana hore uu xaqiijin waayay adigana yaadan xaqiijin ku jabin iskaga joog adi maxaa isleedahay war qofkan wallahi waa run waxa laga yaabaa inaad taraddud sameysid ama kala laabasho ama istiraad wallahi waxaan ama haduu ku fashilantaa asagana intaas uu ka raadinayso ma ina haduu isleedahay waxaan ma haduu ku kashifantaa qof iska daa wallahi bilu waxaan idadu qofkan walaalka uu san ku leeyahay waa macquul ah hasdeen sidaas maxay qofkaaniti wuxuu ku yiri wadadan ana asaas ku noqday iska daa
ilaahay dadka isku si uma abuurin, ilaahay dadka isku karti ma siin. qofkan iyo adigana ma aragtaa isku abuur ma tihiin, isku kartina ma tihiin. laga yaabo qofkan inaad karti badan tahay, marka maahan taas inuu kaaga dhigo sabab macquul adig uu kugu qancin karo, adoo maaragta adiguna isla uu kugu qancin karaayo waa sababay noqon kartaa. marka ka digtoono dadka noocaas oo kaleentood waa dad dabcan horumarka kasoo horjeedo. qof walbana ma ahan inaa iska aamintid, maxaa yeelay adduunyada maanta horta waxay noqotay adduunyo maaragta iska imtixaan iyo fidno badan. dadkii aaminaadiyaa ka dhamaatay, qof baad maaragta la tashanaysa aduu daacada, laakiin isagiina asoo niyad kala damacsan ayuu maaragta ay tala ku siinaya, adiguna waxaa tahay qof iska dhiban marka amaba qof tala doon oo maaragta arintu ku si ugu qaloocan tahay. marka qofkina si kale ayuu kugula talinaya oo adigana aad istiraadi sidan walaahi waa suurtagal, mana ahan suurtagal. qofkan wuxuu la jeedaa inuu adiga maaragta ku lugooyo. marka ka digtoono horta dadkoo dhan inaa iska aamintid, taas macnaheedana maahan inaadan dadka la tashanin. waa dhab in dadka lala tashanin ay wanaagsan tahay, laana qofka caaqilka ah waa qofka aan keligiis talada iska gaarin ee dadka walaalihiisana la tashto soo maahan. laakiin waxaan ku leeyahay la tasho dad maaragta aad ugu kalsoontahay, isna leedahay waxbay maaragta kugu kordhin doonaan. marka horta xaasidnimadooda sidaas ay casri u noqoto. haddaba waxay tahay maadaama naftu naf iyo shaydaan ay nagu xiriiraan, ayna suurtagal tahay inaan wax maaragta qofi uu xaasidnimo uu ku dhaqaaqi karo, sidee xaasidnimada ugu fudud oo aan isleeyahay isaga daweyn kartaa ama aad ugu hortegi kartaa. horta sida ugu fudud oo aniga aan isleeyahay xaasidnimadu waad isaga daweyn kartaa ama aad ugu hortegi kartaa waxay tahay tusaale oo kaleeto qof qalbigaaga ama waxaad aragtayba qof maaragta wax kula dheer fadaaisha ilaahay baa dadka u kala maaragta u qeybiso maahan oo ku kala fadilo dadka ilaaha kala dheeraad kala siin. marka aragtid qof wax kula dheer, ama haday noqon lahayd hanti, ama haday noqon lahayd cilmi adduunyo aakhiro, ama haday noqon lahayd ubad uu qofkaas ilaahay ku irsaaqay, marka adigana aad wixii aadan haysanin naftaada qalbigaaga haday kusoo dhacdo alla qofkaas waxa uu haysto, bal adiga sidee aad ku heli weysay, ama hadaa adigana heli lahayd bal ka waran waxyaaba noocaas adiga maaragta qalbigaaga way kusoo dhacda. laakiin in carabka kaga dhawaaqdid ama qofkaas inaa ficil ahaan u xasidid ama qofkaas inaad tala xun siisid, wax u rumeyn kara qalbigaaga waa adiga soo maahan. waxa ka joojin karna waa adiga. marka sidee uga joojin karaa waa marka qalbigayga waxaad uga joojin kartaa, waxaad sameyn kartaa wax qofkii walaalka ahna waxiisi u siyaadinaya adigana aad wax ku helaysid. taasuna maxay tahay waa wax hadal yar oo adi afkaaga kasoo baxay, wax kalena maahan. waxay tahay inaad qofkan walaalka u duceysid. marka qof walaalka wax uu haysta ku aragtid u ducey, waxaad tiraahdaa ilaahay qofka sibila waxaas u haysto ilaahayuu u barakay anigana isii. xitaa hadaadan dhihin anigana isii oo kaliya tiraahdaa ilaahay qofka walaalka wuxuu haysto u siyaadi maaragta una barakay, waxaa dhacayso oo dhabna ah xaqiiqana ah xadiis nabina ah in adiguna ay ku duceyn doonto malaa'igta raxmaanka. maxaa yeelay malaa'igtu waxay ku leedahay markuu qof u duceeyo walaalkiisa, malaa'igtuna waxay leedahay ilaahay qofkaasi bal wuxuu qofkaas walaalkiisa ugu duceeyay wax lamid isagana sii. haddaba su-aasha meesha taal waxay tahay qofkii walaalka adiga waa u duceysay, adiga ducadaada waa ma lahuba inay maqbuul tahay, waa ma lahuba inay mustajaabu dacwo tahay, waa lama hubo, adigana ma ogid anagana ma ogin. laakiin waxaa la hubaa oo inay mustajaab dacwo yihiin la hubaa waxay tahay waa malaa'igta ducadeeda waa maqbuul, xagga raxmaankana waa laga aqbalaa, lamana soo celiyo. marka maadaama ay malaa'igta raxmaanka inay ku duceysay aad ku heli kartid inaad qof walaalka u duceysid, bal maxaa ku asiibaya hadaa qofka walaalka u duceysid inta qofka walaalka ilka gaar leed ama xaasidnimo ay ka gaarin leed ama aad habaar leed ama aad ina lugooyadiisa sameeysid aad tafxiidan leed u ducey walaalka. adigana sidoo kale in lamid aad helaysaa insha Allah raxmaan iyo inka badan dheera iyo dhawaani waad helaysaa. isdhiin oo kaliya hadii aad maaragtaa u duceyso qofka walaalka wixii aad heli weysid waxba ma aan helin maya, waxaa laga yaabaa xataa in maaragtaa hadadan adduunyada ku helin oo aakhir ilaahay kugu dibdhigo. marka insha Allah raxmaan horta sidaas waxaan isleeyahay waa sida ugu fudud ee xaasidnimada isaga daweyn karta, adigana aad ku heli kartid wax maaragtaa dheef waana dheef la hubo maasha Allah tabaaraka raxmaan. horta ilaahay naga dhigo kuwa sidaas u dhaqmo, ilaahayna naga dhigo qof kuwa aan dadka xasidin, kuwa aan dadka xumooda ka shaqeynin. maxaa yeelay xaasidnimadu ma ahan wax wanaagsan. xaasidnimadu waa ognahay sida diintu noo sheegtay waxay aakhirana xasanaadkaaga cunaysaa sida xaabada dabka u cunto. adduunyada intaad joogtid waxaad noqonaysaa hadaa tahay qof xaasida, qof dayiq iyo cariiri ku nool oo laabta maaragtay cariiri fara badan ka dareema. maxaa yeelay qof walba nimcada ilaahay siiyey ayaad ku haysataa, maadaama dadka dhan nimcada ilaahay siiyeen aad ku haysatid
markaasi dee ma noqonayso qof raaxaysto oo noloshiisa ku raaxaysto laakiin haddii qofka walaalka u duceysid maasha allah tabaaraka raxmaan laabtaada waxaa ka dareemi doontaa waxay tahay waasicnimo iyo in ilaahay qinaaco qalbiga ku geliyo ilaahayna maaragta qalbigeena qinaacaha noo geliyo ilaahayna xaasidnimada iyo xiqdiga naga ilaaliyo insha allah raxmaan intaasaan rabaa inaan fiidiyowga kusoo koobo rajeynayna waxay ka faa'iideen walaalahan jeclahay walaal haddaad nagu cusubtahay janalka subscribe noo saar haddaad hore noola joogteen insha allah raxmaan jasaakumullahu khayran dhammaantiin fiidiyowgan fiidiyowga insha allah intaan ku kulmeyno waxaan idinkaga tagaya waxay tahay salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu